oo aabaheed kufsaday yaan hadda keeska dabagal ku haynaa marka waad dareemi kartaa arrimaha kufsiga waxa dhacdooyinkii hore la yaabtaba tani saaxiibaal waa dhacdo xanuun bal oo ka darantii horeba rooxaantii haddaba saaxiibaal muuqaalka markaan soo taminay ama markaan xogta baaray runtii wuxuu ugu noqday mid aan runtii ka arjaxo taasoo igu saameyn ku yeelatay dadka aan halkan ugu soo gudub doono haddaba saaxiibaal muuqaalkan haddii aad tahay qof 20 jir ah si daawo muuqaalkan haddii aad ka yartay saaxiib muuqaalka iska dami oo runtii aad iyo aad baan ku salaamaya haddaba muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay runtii daawadayaal sidaan xagga horeba nigu soo tusay muuqaalkan tii aan nii bilaabinba dhacdo xanuun badan taasoo ah in inan yar uu dhalay aabaheed oo kufsaday oo wax ka dayay runtii dhacdadan ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho oo ah ay ku soo badanayeen dhacdooyinka maalinlaha iyo bilahaba runtii taasoo ah maalin walba laga soo sheegayo arin runtii aad u foolxun haddaba saaxiibayaal muuqaalkan iga soo diyaariyay haddaba halkani waa channelka xubinta wararka saaxiib dad ku cusubtay subscribe ku qabo like-na saar muuqaalkeenan suugan mid noqda muuqaalada ugu wacan ee YouTube la soo geliyo waad ku mahadsantahay jaanqaadkaaga ee ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta haddaba muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay runtii saaxiibayaal dhacdo xanuun badan taasoo qabsatay hooyo Soomaaliyeed iyo aabbo Soomaali oo runtii ah ku dhaqan magaalada Muqdisho haddaba aabahan ayaa ah wiil inan yar uu dhalay ayuu runtii wax ka dayay kaasoo runtii isku dayay inuu kufsado laakiin se runtii ah in markii daba uu ka dhameystay hawshiisii uu ka galiyay xubinta tarankeeda wax loo yaqaano qodax laakiin si runtii taasoo ku sababtay dhaawac culus runtii kadib markii dhakhtarka uu geeyay sida hooyadeed u sharaxayso haddaba saaxiibayaal hooyadeed oo sharaxaad ka bixisay ayaa telefishinka u sheegtay in ay ahayd iyadoo waliba qaranaysa sidoo kale saaxiibayaal waxa soo badanaya dhacdooyinka maalinlaha ee runtii ka dhacaya Muqdisho taasoo midba mid ay ka sii darantahay laakiin se saaxiibayaal waxaan nila wadaagi doonaa hadda muuqaalka gabadha oo iyadoo xogta rasmiga TV-ga u sheegtay waa kan ee saaxiibayaal muuqaalkan daawo haylaawin saaxiib channelkeena haddaan hore ugu soo biirin subscribe saar saaxiib si aanu gaarno horumar wacan like-na saar muuqaalkeena oo ku mahadsantahay ee daawo muuqaalka waa kan